السلام عليكم maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay sideed waxyaabadood maalin walba aragtid balse aad garanay ujeedooyinka saxda ah amba waxyaabaha loo isticmaalo waxyaabaha yar waa waxyaabo fudud oo maalin walba aragtid balse aad daadinayn waxyaabaha saxda lagu talagalay ama loo isticmaalo كو stickers كان بورقة يرى قلت على مرها أما خضارتها واحد بدنا عرقتي stickers بورقة يرى قلت على مرها أديب ستو أما السوق يالا لكن ميسويد سببتها هذا بورقة يرى وحاله على مضيعة وطن كي يعيد صوصار تمرها أما خضارتها بلسين يرى يتكمل يا جرانيسا محيه نبرد كقرن ورقة داس هدو نبرة كويالا ويهي أفرقد وراه ريا أفر تمعنى ذو حويه waxa laga buufiyay cayaan midhahaas hadaba haduu ka kooban yahay afar god uguna horeeya sagaal taa macnaheedu waxa weeye midhaha si toos ah ayaa loo beeray ama si asli ah hadaba haduu ka kooban yahay shan god uguna horeeya sideed taa macnaheedu waxa weeye hiddahoodii waxba laga bedelay waxa jira waxa loo yaqaano gene modification taas lagu bedelayo hiddaha midhahooda amba xayawaanadaba iyadoo loo eegaysiinayo ama laga dhigayo shay kale hiddihiis iyadoo la sameeyo hiddagadis ama gene modification laba muraayada cadeeda waxa loo arkaa inay leedahay hal ujeedo magac kasta ha lahaatee umana fudud sida ay tahay muraayada madow waxa ikhtiraacay dadka Arctic ee degan meelaha qabowga sida Canada, Greenland iyo Alaska iyo meelaha la midka iyagoo iska ilaalin jiray dalaalka ama iftiinka oo bixiyo barafku kadib waxay si bilaaran ugu fiday garsoorayaasha maxkamadaha qarnigii 12aad China ayaa xidhay si ay ugu qariyeen dareemahooda markhaatiyaasha maadaama halka ugu badan ee laga dareemo xaqiiqada qofku ay tahay indhaha waqtiyadan dambe waxaad arkaysaa askarta iyo macallimiinta imtixaanada ilaaliya oo xidhan sababtuna ay tahay iyadoo aan la dareemin waxay fiirinayaan kaliya aad arkayso muraayada madow saddex banaanada amba isbeesida buugta wax lagu qoro buugta waaweyn ee wax lagu qoro waxaad ku arkaysaa laba dhinac oo banaan ma isweydiisay sababta loo baneeyay haddaba meelahaas banaan looma banayn inay ku banaanaato oo aad wax dheeriye ku qorto runta ayaa waxay tahay jiirka ayaa wuxuu jecel yahay inuu cuno waraaqaha haddaba waxaa lagu talagalay inaanu jiirka cunin qayb ka mid ah warbixinaha buugga ku qoran maxaa yeelay jiirku wuxuu cunayaa halka banaan ee aan waxba lagu qorin dadka qaar ayaa waxay wax ku qoraan halka banaan oo halka ugu badan ee waxyeeladu soo gaadho afar godadka ku yaala quflada waaweyn ee guryaha waxa badanaa ku yaala godad yar yar ma isweydiisay maxay ka turjumayaan haddaba quflada waaweyn waxa loo isticmaalaa in lagu xidho albaabada iyo dirirka haddaba iyagu si dhaqso leh ayay u kharaabaan sababtuna ay tahay biyaha roobka ayaa taxliya ama xumeeya markay taasi dhacdo dadku way jabiyaan qufulka kadibna way turaan mid kalena way soo iibsadaan in yar oo ka mid ah ayaa garanaysa ujeedada godadka yaryar ee ku yaala hoosta qufulka waxaa lagu talagalay inay jidka gudaha ku jira lagaga shubo saliid kadib markaad martaab ka yar qufulku wuxuu ku soo noqonayaa inuu xidhmo ama furmo iyadoo wax dhiba la marin shan calaamada R ama R waxaad badanaa ku aragtay ashyadan isticmaalno xarafka R ama R oo ay ku wareegsan tahay goobo tusaale ahaan waxaad ku aragtay baytarida iyo alaabta ku shaqeysa dabka kadib waxaad istiri mala waxaa lagu talagalay waxyaabaha ku shaqeeya elektriga ama dabka kadib ayaa haddana waxaad ku aragtay caanaha daasadaha iyo cuntooyinka kadib ayaa istiri mala haddana cuntooyinka ayaa lagu talagalay haddana waxaad ku aragtay cagadaha dawooyinka meel kasta kadib intaad yaabtay ayaa waxaad tidhi niyo waxaan maxaa meel walba lagu soo dhejiyey sababtu wax kale ma aha aartan amba raadani waa sumad amba calaamad juqraafi ahaan loo yaqaano topographic symbol waana calaamad ama sumad lagu talagalay ganacsiga ama adeegga iyadoo laga soo diiwaan geliyay xafiiska caalamiga ee sumad ganacsiyeedka ama trademark sumad ganacsiyeedkuna waa kelmad ama calaamad kuwaasoo si sharci ah loo soo diiwaan geliyay ama loo aas-aasay iyagoo matalaya shirkadanba wax soo saar
wadamada qaar waa sharci darro in la isticmaalo sumad ganacsiyeedka ama trademark-ka. taa macnaheedu waxa weeye waddan kasta si caadiya looguma diiwaan gelin. 6 daloolada ku yaala furka qalin birooga wuxuu ka hortagaa inay hawadu ku dhegto markuu ilmaha yar liqo. maxaa yeelay jidadku ay hawadu soo marayso ma xidhmayaan, balse waxay soo maraysaa daloolka furka qalinka. 7 daloolka ku yaala usha nacnac qoriga. usha amba caaga dhuuban ee nacnac qoriga waxa ku yaala dalool yar. haddaba daloolkaasi wuxuu isku hayaa oo isku xejiyaa usha iyo nacnaca. muhiim maaha bacda ku duuban, balse daloolka yar ee xodan ayaa muhiim ah, kaasoo isku xejiya usha iyo nacnaca. 8 jeebka yare ku yaala dharka jeemiska. dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in jeebka yare ku yaala dharka jeemiska uu yahay qurxin iyo faashin, balse waxaa loo sameeyey in lagu qarsado waxyaabaha yaryar muhiimka sida lacagta iyo dahabka, sida Soomaalidu u taqaano jeeb tuuga. والسلام عليكم.